bal ka waran adiga iyo qoyskaaga oo si caadi ah gurigiina ugu nool haddii muddo dheer kadib aad ogaataan inuu guriga idinkula nool yahay qof aadnan garanayn weligiina aadnan arkin wax idinla cuna waxna idinla caba hal qof oo idin ka mid ana uusan arkayn qofkan aniguba ma aanan rumaysan sida adiga oo kale qisadan ilaa aan arkay dokumentiyadii cadaymihii iyo muqaabaraadkii cadaymihii oo sawirro iyo muuqaalo ah iyo sidoo kale dhibanayaashii uu qofkan noloshooda burburiyey oo ka sheekaynaya waxaa ka mid ah masiibooyinkii uu qoysaskan dhibanayaasha ah u geystay qoraaladan uu derbiga ku qorqoray sidoo kale waxyaalaha mucjisada ah ee aad qisadeennan ku dhex arki doontaan waxaan si dhammaystiran idinkaga tusi doonaa muuqaalada iyo cadaymaha ay booliisku soo bandhigeen sidii u awooday muddada intaas leeg inuu qoyskan ku dhex dhuunto ninkani waxaan kaa codsan inaad muuqaalkan like saarto siina sheergareed si uu u gaaro dhammaan dadka muslimiinta ay uga digtoonaadaan dadka dhagaraha noocani oo kale ah ku shaqaysta waxaana kaa dalbanayaa ugu yaraan 3 qof asxaabtaada ka mid inaad muuqaalkan usii sheergarayso waxaa laga yaabaa qisadani inay dhacday xilli hore oo muddo 20 sano ka badan ah laga joogo laakiin ma rumaysanaysaa in ninkan loo maxkamadaynayo muddo asbuucyo laga joogo qisadani waxay ka dhacday magaalada Bangaaz ee dalka Liibiya ninkan oo lagu magacaabo Ahmed Mas'uud waxa uu caan ku ahaa oo ay dadka dhan ku yaqaaneen inuu yahay wadaad cilaaj ah dadka Quraanka Kariimka ah ku daaweeya ninkan muddo 20 sano ah ayuu dadka Quraanka Kariimka ah ku daaweynayay qof walba wuxuu leeyahay Sheekh Ahmed Mas'uud ayaa Quraan igu daaweeyay Sheekh Ahmed Mas'uud ayaa sixir iga daaweeyay Sheekh Ahmed Mas'uud ayaa xaasid iga daaweeyay Sheekh Ahmed Mas'uud ayaa nolosheeda oo ciriiri ku jirta i daaweeyay dadkii oo dhan dhexdeeda ayuu muddo 20 sano ah barteen oo dadkii oo dhan ayaa ku jeclaadeen arintan laakiin waxa cadaatay ninkan inuu ahaa saaxir mushacwad ah oo qatar ah dadka guryahooda ayuu gali jiray noloshooda ayuu dabagadi jiray oo burburi jiray gabi ahaanba ninkani wuxuu bartay sixirka ugu qatarta badan ee jinka loo kaalmaysto ee loo yaqaano sixirka madow inuu sheekh quraan saaraya yahay ayuu si fudud dadka guryahooda ugu galayaa muddo 20 sano ah ayuuna dadka sixirayay ayagoo u maleeya inuu quraan saarayo ninkan shaqadan kaligiis ayuu ku ahaa markii hore laakiin markii dambe wuxuu go'aansaday inuu walaalkiis asaga ka weyn oo Ibraahim lagu magacaabo shaqadan soo galiyo waa uu u tagay waxa uu ku yiri dakhli fiican ayaan halkan ka sameey karnaa ee shaqadan igula soo biir kama uusan diidin Ibraahimna walaalkiis taladiisa ee waa uu ku raacay shaqadii ayuuna ku biiray sidaas ayayna ku noqdeen labada nin oo walaalaha ah Ibraahim Mas'uud iyo Ahmed Mas'uud laba saaxir raggan markay qofka sixirayaan waxay u adeegsadaan sixir la yiraahdo sixru daaca wal istifaada waa sixirka adeecida iyo ka faa'iideysiga waa sixir qofka loo adeegsado wax walba oo laga rabo laga dhameysanayo waa sixir qofka loo adeegsado uu jeclaanayo qofkii u adeegsaday wax walba oo uu rabana uu ka qaadan karo markay qofka sixiraan waxay rabeen ay ka qaataan lacaga aad u fara badan ay ka qaataan ayay sixirka wax yar ka fududeynayaan qofkaas waxayna leeyihiin waad caafimaaday qofku markaas firfircooni yar ayuu dareemayaa sidaas ayuu ugu keenayaa dad aad u fara badan asagoo dhahaya sheekhani wuxuu daaweeyaa sixirka waan ku caafimaaday sidaas ayayna caan ku noqdeen oo dad iyo macaamiil aad u fara badan ay ku helayaan markaas qofka ay sixraan shilinka jeebkiisa ku soo dhacaba ayaga ayuu u geynayaa muddo 20 sano ah ayay wadadaas ku shaqaysanayeen qoysas badan ayay noloshooda burburiyeen sidoo kale dad badan ayay ka taqaluseen dadka dhibanayaasha u noqday raggan aad ayay u fara badan yihiin waa kuwan muuqaaladooda ayagoo hadlaya xitaa waxa ku jira qaar ay ilmahooda dileen oo ka taqaluseen markii ay bateen dadka masiibooyinkani ay ku dhacayaan qaybo badan oo dadkii ka mid ah waxay keensadeen culimo caadi ah oo guryahooda u quraan saarta culimadii markii ay soo galeen guryahan waxay arkeen qoraaladan madmadow oo meel walba ku qoran waxayna yiraahdeen dad yahu guryihiina waxa ka buuxa sixir markii culimada loo sheegay inay Ahmed iyo Ibraahim guryahan joogi jireen waxay yiraahdeen kuwani culimo quraan saar ma ahan ee waa saaxiriin dijaaliin ah oo noloshiina burburinaya markii ay dadkii oo dhan ogaadeen dhagarta raggan dadkii aad ayay u caroodeen waxayna bilaabeen inay waraaqad dacwo ah booliska u qoraan maalinba maalinta ka dambeydana booliska waxa soo gaarayay dacwooyin aad u fara badan isla markaas boolisku waxay bilaabeen baaritaan raggan ku saabsan laakiin ayaga ayaaba la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigeen baaritaan badan ayay boolisku sameeyeen raggan aad ayaa loo raadiyay laakiin Ibraahim Mas'uud meel uu ku dhibcay waa la waayay markii la qabtay Ahmed waxa la weydiiyay aaway walaalka Ibraahim laakiin bilowgii hore waa uu inkiray waxa uu yiri gabi ahaanba wax Ibraahim la yiraahdo anigu ma garanayo laakiin saaxirintii kale ayaa fashilay waxayna yiraahdeen walaalka Ibraahim waxa uu joogaa qoyska lagu magacaabo xaasi gurigooda saaxirintii ayaa la weydiiyay oo ma qoyskan ayaa gurigooda ku haysta ninkan oo ku qarinaya waxay dhaheen maya waa uu la joogaa gurigooda ayuuna ku dhuumanayaa
laakiin qoyskani ma oga. Saaxirkan oo isticmaalaya sixir daaca ayaa qoyskan gurigooda ku dhuumanaya, hal qof oo arki karaana ma jiro. saaxiriintii ayaa booliiska wadeen waxayna geeyeen qoyskan oo lagu magacaabo Xaasi gurigooda. booliisku markay qoyskan u tageen ee ay weydiiyeen ninka Ibraahim lagu magacaabo oo gurigiina ku dhuumanaya soo bixiya, qoyskan waxayba yiraahdeen ma garanayno ninkaas, weligeena ma aanan arkin, gurigiina waa kan oo waad ka raadsan kartiin. booliiska ayaa saaxiriin kale soo wadeen, sidaas ayaa gurigii looga baaray ninkan saaxirka ah. sidoo kale waxaa la soo waday qaar ka mid ah culimada ruqyada sharciga ah oo Qur'aan akhrinayay. waxaa la furay mid ka mid ah guryaha qoyskan albaabkiisa, waxaa loogu tagay ninkan saaxirka ah oo gurigii dhex fadhiya gacantana sixir ku haysta. xilligaas qoyskan oo dhan waa ay naxeen. bismillaahir rahmaanir rahiim, xagee ayuu naga soo galay kan, weligeenba ma aanan arkin. siduu ku awooday marka ninkan inuu soo galo qoyskan gurigooda? maalin maalmaha ka mid ah qoyskan gabar ayaa ka jiratay. marka qoyskan wadaadadan ayaa loo sheegay quraanka wax ku daaweeya. qoyskan ayaa u soo wacdeen si ay gabadhooda ugu quraan saaraan. Axmed Mascuud iyo Ibraahim Mascuud ayaa qoyskan gurigooda imaadeen. ayay la joogeen. marka ninkan Ibraahim lagu magacaabo wuxuu arkay gurigan aadka u quruxda badan, aadka u weyn, reerkan dhaqaalaha haysta. marka wuxuu go'aansaday inuu in muddo ah meeshan ku noolaado. marka ninkan si uu ugu dhex noolaado qoyskan waa uu sixray. derbiyaasha ayuu sixir ku wada qoray, cabitaankii ayuu sixir ugu daray, sidoo kale derbi walba musaamiir ayuu ku garaacay. sixirkan oo lagu magacaabo sixru maxabba, sixirka isjeclaysiinta, waa uu indha sarcaadiyey oo uma jeedaan. gurigoodii ayuuna kula nool yahay, waxbuu la cabayaa, waxbuu la cunayaa, waana u seexanayaa. in ka badan 9 bilood ayuu gurigooda ku nool yahay, dhaqaalahooda aruursanayaa, lacagtoodii guranayaa. waa ay qabteen, guriga laftiisa ayayna ku xireen. waa kan asagoo ka sheekaynaya qaabka uu qoyskan u sixray. عقد لسان ومحبة وطاعة. in ka badan 30 nusmaar ayuu qoyskan gurigooda ku garaacay. suuratul falaq ayaa furfuri karta sixir walba oo la gungunto ama la maleego. haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto, siina share garaydo, page-kan aad follow dhahdo.